بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو حوض أحمد ياسين قدوميها قسبي وعد قبل الساحل وحن شركة ترايد ما توقفت إنه كجهة ضعف ما بدن وسيء قرن كسمان اللان أرمها وحككوا شركة مقدسو محاية تولي والشركة أرمها دبيدة إيو مدحوينه وكراليه يضو عاي محاية تولي وتجيان دولة أولي كلاميرمين أون السنين أي كبريان هنا أي لكل ما marka la yiraaho Soomaaliland oo iyada dani ka dhaxayso oo dadka ay wuxuu ka dhaxeeyeen wadanka lahaa aan wada hadal iyo xisbiyada qarankana waxa ay ugu noqonaysaa inay ku adkaato oo ay ku tahay geeri ama ay ku tahay sumcad darro ama ay ku tahay in laga adkaaday oo ay uga imanaysaa halkaasi nusqaan marka la yiraaho Muqdisho arinkeeda la soo qaadana Muqdisho inuu kala go'nay oo aanay waxba inaga dhaxayn walaaltinimo iyo tiiraanimo mooyaan talo iyo dawladnimo toona aan iga dhaxayn oo aynu qaadanay inuu gooni isku taag ay ugu cararayaan ay ula kulmayaan maxay tolay wasiiro aan la ansixin ama aan jirin waqtigoodu dhamaaday waxa kale la yaab waxa ay maanta madaxweynaha tagay Faransiiska waxa aan dekadii arrimo ay leedahay dekadii baan Faransiiska maxay tolay عدكو شركة لا هشي تكذب البلاء أهل كذا ما أهلير وحويا وماشي كليا قرن كل كليا هيدو لها دقالة وحقصوا بحيين دولة لماذا يو وحول بكلودي كل سعوني سي أنا كفانا أنا لحين واحد ونقول كذا جوده هذا وكل بس شركة يرى عنا ليه يميل ولا ما يرستو معها waxa kale aan doonay inaan ka hadlo airportka berbera waa airportka ugu weyn waa la xira shaqaale ma joogo uu baabaasay yahay hadii aad dhex tagto wax allaaliyo wax ka soconaya ma jirto waana loogu talagalay marka ma sidii airportka loo baabiyay baa la doonayaa in dekadana loo baabiyo dekada arrinkeedu ma hawl yara dekada ma aha arrin inta la isku ordo la yiraaho anaga wadanka u talino oo anaga wax walba saxiixayna waxay noqonaysaa taasi in la degdegayo oo la boobayo wadanka oo talada la boobayo oo wax walba sidii la doono loo dhigayo oo muddo yar ay u harsan tahay dawladan oo ay rajadeedu sii gaaban tahay sida awadeedna ay u galiyaan kontraado aanay isku dhufanayaan dawladaha shisheeye wax la soo galayaan iyo dadka Soomaaliland u taliyay isbedelka oo diyaarka waxaan leeyahay wax kasta oo ay maanta faraaq ku jiraan awaaqibkeeda ha ka fiirsadaan xukuumaddu haddii ay tahay xukuumadda Soomaaliland oo daacada ummadda ha ka fiirsadaan iyo degdeg ku geli shalay bay ku fashilmeenayeen batroolada la qodaya maanta iyada oo ay waxa la riix research la sameeyay iyo waxa ummaddu ay ka raalito la sameeyay iyagoon arrimaha bulshada waxay bulshadu doonaysaa aan la socon ay maalinba meel la isu daba yaacayaayo qandaraasyo la doonay dekada cid ugu wareejinaya airport baan kan la oranaya maxay tolay waxa la qodaya batrool ugu dambeyntii waxa ay ka hadashay wadada isku xiri doonta gobolada Togdheer iyo Cerigabo taasoo ay sheegtay in muhiim tahay in la sameeyo balse aan lagu aamini karin bay tiri xilligan xukuumadda xisbiga kulmiye oo waqtigeedii gabagaba yahay arrinka kale ee ay doonayaan dadka inay isku dhuftaan Soomaaliland ka hadlaya waxa weeyaan wadooyinka la dhisay wadooyinka la dhiso waa fiican tahay dekada oo kale hadii dekada la weyneynayo oo sidii dawladuhu waxu gali jireen dekada loo weyneynayo dekad cusub la noo dhisayo dadka loo soo bandhigo laakiin contractor nin cadaan ah iyo contractor la xukuumad baanahay oo qandaraas qaadanaya anaku Soomaaliland arrinteedu ma sahlana sida loo galiyo waxaan leenahay doonayaa inaan ka hadlo arrinta wadada Cerigabo dadka degan waa dad qiimo leh waa dad qaranka Soomaaliland iyo reer Soomaaliland ku culus waan rabnaa in loo sameeyo wado laakiin anigu mid qura ayaan keenaya oo leeyahay midda aan ka hadlayo waxa weeyaan reer Cerigabo hantida reer Soomaaliland u qureen yaa dunba horta yaa loo diibay damaanad leh dawladdu way isbedelayaan kulmiye dawladdiisa waqti yar baa u haray reer Cerigabo ee loo dhisiyo dadka deegaanka degan waxooda yaa loo diibay ee haddaan reer Soomaaliland nahay ama dadka doonaya isbedelka inay sameeyaan xisbiyada waxoodii hadhowto la halkeen la dhigaya sanad iyo 2 sanadood iyo 3 sanadood tan kuma dhamaanayse waxaan leeyahay dawladda Siiraayo qandaraasyo aan idin dhamaynayn
iyo ballanqaadaan idin dhamaynayn ha isku gelina idinkoo isla doorashada wax ku heesaan oo wadadii Cergaabo maanu dhamayna hal noo kordhiyo muddada halkii kala caynkan maanu dhamayn markii Soomaaliland intraado soo fadhiista madaxdeedii iyo mujaahidiinteena ha cabaadina marka kalena inta xamar u yacdaan ha khasbina oo Istanbul ha ka ooyino calaalna oran ciidu noo soo dira ciidu idan xukuumadda baa dhisnay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh